waxaan ahay Muniira inantii hawsheeda maalmaha social media dhex socotay maantana idin la hadlaysaa anigoo nabad qaba alxamdulillah wax kastoon rabana waa la qabanayaa oo waalidiinteedii bay garab joogaan laarskoobigi aloosha iyo dhuuntoo dhan la mariyay isagina wakaa wax xanuun oo ay qabtaa ma jirto wiiguuri waxba uma haysano laakiin cidda dambe ee waxaa ku kacda insha Allah minna kariim sharciga uma natiisan doona daawadayaal waxaan ku suganahay hoyga uu ka degan yahay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal Dr. Cabdinaasir Cabdilaahi oo ah Muniira Maxamed Cabdilaahi adeerkeed Muniira waa gabadhii muddooyinkii ugu dambeeyayba muuqaalkeedu uu haystay baraha bulshada ee social media iyadoo Muniira sheegtay inuu hayo xanuunka kansarku Dr. Cabdinaasir ayaa faahfaahin inaga siinaya isla markaasina inoo sheegaya natiijadii ugu dambeysay iyo dhakhtarkii ay geeyeen iyo halka ay xaaladdu marayso waqti xaadirkani isaga oo ay weheliyaan qaar kamida Muniira adeeradeed iyo sidoo kale Muniira hadaladoodu waxay u dhignaayeen sidaan waxaan xagan u mahad celinayaa Tawfiiq Ishqi waxa kale oo dhamaan salaamaya ummadda Soomaaliyeed iyo adeeraday ina adeerkay inanteeda Muniira Maxamed Cabdilaahi anigoo Cabdinaasir Cabdilaahi Axmed waxa in badan social media aad ugu jiray in gabadh aan adeero ahay oo la yiraahdo Muniira Maxamed Cabdilaahi leeydi cudurka kansalka ay qabtaa oo social media si aad loo dhaxgeliyay taasoo aan waxba kala socon kadib markii aan ogaadina aan la xiriiray aan wax telefoonana ka waayay inta kadib waxa la ala kulli hal waxaan daba socdo waan helay kadib markii aan soo kaxaynayay ee saldhiga la igu sii sugsiinayay ayaa waxa ila joogay qadan qaran iyo walaalkeed iyo abtigeed dhamaantayo anagoo wada joogna ayaan ka soo kaxaynay aanu gaarigana soo saaranay marka social media waxa la dhaxmariyay gabadha qadan qaran ayaa dilaysay Muniira taana wax allaali wax ka jiray ma jirin qofka gaariga saaraya la joogana anigoo ahaa iyaduna dadkiina maqal kaliya ayay ku lahayd kadib sidii baan isku soo raacnay ilaa Boorama ay noo soo raacday iyadoo sidii u waaninaysa iguna tiri Muniira ilaa gurigeeni baan kula geynayaa isbitaalka ka baarsan kula geynayaa ilaa natiijadeeda aan helo iyadoo si samafala hawshaan oo la waday kadibna loogu abaal guday in la yiraahdo Muniira dilasay iyo waxyaalo kutarkuteena aan waxba ka jirin ala kulli xaal Muniira waa inaan adeero ahay waxaan geeyay isbitaalka Al-Hayaat leeyahay ee ku yaala magaalada Boorama oo international ah kiiban shaybaadho uga sameeyay aan baaritaan uga sameeyay ilaa laarskobi iyo wixii oo dhan baan mariyay kadib waxaan social media aan uga soo duubi weynay sidii horeba qolada hore ay u soo duubtay in iyadoo adeegii loo wado waa protocolka isbitaalka ayna kamid ahayn qofka patientkii hadii uu dalbado in laga duubo media ama sawir waa loo golaan karaa laakiin qofka hadaan raali ka ahayn wax laga soo duubi karaa ma jirto waana sharafta iyo tigista isbitaalka kadib Muniira wax TVL ma laga duubayaa igu tiro mayada raxba laga dad u ogolaataan ku dhaadii kala cid ka duumayso miyaan liiga duubin waayahay laga duubi ma aan kulwataan wada joognaa sidii baan shaybaadhadii ugu sameeyay dhigagii laga qaaday negative lady ilaa inta tuumbadii lagu dhaadhicinayay caloosha anoo dul taagnaa waxaan xidhnaa dharkii qalin saan adeega loo wado aan goobjoog uga haado wax mobile iyo wax TV on ka duubnayna ma jirto kadib markii loo soo dhameystiray sidii baan ku nimid ee dhakhtarkii ugu qanciyo meel kasta ay tusay oo dhoon kasta saa u raaciyo tusay wax dilaaca iyo wax dhibaato ayna jirin kadibna ugu yiri waxaan de natiijada ayaaba ku fiican oo aad ku qanci kartaa ugu yiri oo sawir la duubiyo xataa waxa soo dhama kaaga qiimo badan sidii baana ku qancay waxa la wixii jawaabihii ay soo saareen waa kuwan shaybaadhadeedii tahay shaybaadkii natiijada wakaa oo wada negative laarskoobigi aloosha iyo dhuuntoo dhan la mariyay isagina wakaa wax xanuun oo ay qabtaa ma jirto wiiguuri
kadib anna sidii baan ku qancay soo kaxeeyey Maniira waa gabadh aan adeer u ahay aanan jecelahay horena waan ugu sheegay meel kasta oo ay ku qancaso ay wuxuun ka tabanayso haddii caafimaadkeeda tahay inaan geyn doono ummadda Soomaaliyeedna way maqlaysaa cid kastoo ay qusaysaana way maqlaysaa iminkana waxaan diyaar u lahay meel kastoo wax ka tabanayso halkay doontaa noqotay inaan geeyo oo ku soo daweeyo anagu ma nihin dad loo dawriyo dad loo baaheeyo dad carruurtooda la yiraahdo soo caawiyay waxa dad sharaf laanahay dad qiimo laanahay dad iyagu wax caawiya ayaanu nahay ma jecelina ilmaha dhashay in social media la wadwado oo la soo oo awrada oo carruura oo 20 jir gaadhin in la yiraahdo cid male waxba looma qabanayo dadweyne soo caawiya wallahi arrinkaas aad buu sharafta reerkayga iyo ta qoyskayga iyo teeda intaba uu dilay hooyadeedna waa gabadhayadii 4 carruur inoo haysaa Maniira ku jirto iyaduna sharaf iyo karaamo ay agteeda ka leedahay waxay u shaqo tagtay u shaqeynaysaana waa ubadkeeda anaguna waan ku garab taaganahay wax umaano ay geedaana ma jirto wax inanteeda ay ka geedaana ma jirto cid kasto ay la soo hadashay oo de hadalla kulilo waxay doonto ku tiri waa hooyo ilmaheedii la qaatay waxa la waxay doonto ay ku hadli kartaa waxa la wax dambiyo looga raaci karaana ma jirto ala kulli xaal ilmaheegii waanu soo helay waanu haysanaa wax kasta ku qancaso kuwa u qabtaanahay ummadda Soomaaliyeedna anaga wayna taqaanaa qoyskaanahay reer Cabdillaahina anahay wala yaqaanaa dad sharaf leh inaanahay wala yaqaanaa waxa la waxa inta dib noo dhigay ee social media aan soo gali weynay waa sharafta reerkayga iyo inanteeda Maniira intaba anagu difaacana inta nina social media ka soo duubisay soo caawi lahaydna telefoon anagu aan kala xiriirnay si sharaf laan ula hadalay walaal ma had gabadheeda tuu loo baahan karo baan ku niri annaga ag joogna oo qof qiimo leh annagiiba dad qiimo la sida ugu dhaqsaha badan walaal anagu ayaan ka codsanay in noogu soo wareejiso mid waad ku qaldanteen baan ku wari inaad social media ka duubtaan inan yar oo waalidkayga joogo haddaad hooyadeed ama aabaheeda kala telefoonkeeda weydaan adeeradeed baa jira habaryaraheed baa jiro Hargeysa degan abtiyaasheed baa jira qofka haduu social media ku dhex jiro waa inuu yiraahdo waayeen ku garaaca Maniiray ehelkaaga ilaa waa hawl adag baa la galiyaa soo caawiyaa baa la leeyahay arrinkaana waad ku degdegteen baan ku wari laakiin waxaan idinku dhaafayaa baan ku wari markaad tiraadan ilmihiinii baan caawinana taasan taana inaga dhaafay laakiin wax jawaabo adlaysiye ma jirto markaan ilmahayga rabay jigjiga cid ku joogtaa ma jirtaa baa laygu yiri ha waxa jooga walaalkay baan ku wari oo hay'ad u shaqeeya isaga walaal iskaga wareeji anagu aanu iman meel alla meel kasta doonaysa adigoo arkaya ayaanu sharmaaka u geyn baan ku wari caafimaad baad wax kasta u baahan tahay lacagtii lagu soo shubinay hortayada bilowgii baan iska xidhay oo telesoomti tagay oo ku wari wax dambeeyay ku soo dhicinay halka iga xidh kadib hawshiisaasan u waday ummadda Soomaaliyeed oo dhan way mahadsan tahay waxa kale oo aan ka codsananaa in sharafta qoyskayga ta ubadkayga ta gabadhaanu qabno ta ilmahayga Maniira intaba in la nagu tixgeliyo oo si bini'aadantinimo naxariis leh annagoo kuwii waxa sameeyay aan waxba daba dhiganayn waxa laaliyo waxaan ka rabnaana ayna jirin in la nagu qadariyo ilmahayga la nagu ixtiraamo la nagala warhayo waxa aanu qabanano iyo heerka aanu gaarsiino intaba ummadda Soomaaliyeed oo dhan diyaar aanu lanahay in sharafteeda la nagu taageero gabadha aanu qabnana laga daayo su'aalaha badan gabadheeda Maniirana laga daayo su'aalaha badan wax kasta haday wax qabtana anaga noo qabtaa haday caafimaad qabtana anaga noo caafimaad qabtaa ummadda islaamku dhan saamax bay naga yihiin sheekada in halka lagu dhaafo ayaan ka codsananaa oo waxba la sii wadwadin social media inta waxaan ugu gabananay inaan ilmahayga helo kadibna aan waajibkayga qabsano manihin dad social media soo dhax fadhiista dad waxaan nahay iska ilaaliya in meelaha wax iyaga hadlaya lagu arko ama hawla adag ka hadlaya marka ummadda Soomaaliyeed dhammaan waxaan ka codsanayaa youtuberada dhammaanba inay hadallada ay sharafta leh ay faafiyaan ay xumaanta qoysaska la daba socdo la iska daayo Maniira cid mala dambanayaan cid ka maqal haday dawlad tahay haday shacab tahay haday cid kasta tahay annaga la nagu yaanaga joogna annaga dhalay annaguna manihin dad lacag loo ururiyo walaalaha muxsimiinta ee hawsha ka qayb qaadanayay ee la qalday dhammaantood waan u mahadnaqanaa
waan sharaf baan ku leedahay baan leenahay walaal waxaad hawshaad gasheen laakiin se waan iniga raali gelinaa inayna waxa walaal wax ka jira ayna jirin ay ilmahayga nooc caafimaad qabto wixii ay tabasana aan hal alla meel meeshay doonto aan geyn doono anu intaan social media hawlahan la soo dhigin waan la hadlay Muniira adeero ka qaad baan ku waxaan dhiigani waxaan meesha la soo dhigay annagiiba adeer dad sharaf leh oo adeeradaayoo ku jecel haddii sababa haddii doonto meeshay doonto anaa ku geenaya adeer ii kaale baan ku berrito ta Muniira yaa fadhida aan hawshaana kala hadlay iyadoo aan ay marxaatiyo ii joogta wax barablana oo aan Hargeysa ku haysto ay noo sheegtayna inanteeda ay ma jirto markaan la xidho waxa ay soo diray igu tiraado mooyaane wixii aan u diray adeer dhibaatadaas ay haysataan hal mar iguma oran kullee waa wax na hoos maray si ay u dhacdayba aduu cid kastana waan ka raali gelinaa kii ka qayb qaatay kii TV ka duubay in alla inta dhamaan ummadda dhan waan saamaxnaa wax xumaan u haynana ma jirto arrinkaas social media in laga saaro waa arrin qoys arrin fadeexad ku qurux badan maaha gabadha qaran iyadna waa gabadh aad u fiican sida ay noola shaqaysay sida itigiis kale sharafta leh wax noola qabatay iyadoo xaqiiqada qoyskeeda ogaatay mana soo raacday aragtay baaritaankii ilaa aan arkana ka tagi maayaan ugu tiri waxa soo wanaagana nala gashay hal xumaanana u yeelan dadka foolxumada inay faafiyaan jecel social media mobilada intii la soo daba istaagaan anagoo gaariga inanteeda soo saarana lahaa qadan baa tiyeeri dishay waxa wax ka jira ma jiraan markay la hadlaysina waxay lahayd dadkiina maqal taadeer markay maadaama bilowga aan qabanay ay nagu yar carootay walaalaheed isku yar dhaceen iyadoo waxa la dadkiina maqal oo raac wax xumaan u geysatay ma jirto waxay ku dhufatayna ma jirto waxan nabarkan waa la dilayna wax la dilay ma jirto waa walaalkeed ayay isku dhaceen oo qabashadii iyo hadalkii iyo wax yara staafkii ka dhacay taasina wax qoys u yaala ma wax bariyadan u yaalo nabarkaasina sida uu dhacay waa Muniira walaalkeed bay saf dhaafeen in abtigeed marka gacan ba soo kala gaadhay oo keera kalena ilig ba adu wax ka gaadheen inanka kalena adu nabareer ba soo gaadhay iyadana intaas soo gaadhay waana walaalaheed waxay kaga dhacday cid shisheeyana maaha cid bili aadanana maaha qadanna maaha marka ummadda islaamka waxaan ka codsanaa in sheekada qoyska halka lagu dhaafo lana ogaado wanaageeda iyo halkaan wax marino iyo sida sharafta leh ummadda ula wadaagno dadkan la digano dhan wayna yaqaanaan wax xumaana la nagu mooga wax dayacaada la nagu mooga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملي قولي أنا فدنا قولي عبد الناصر شاه عبد الله شاه أحمد دعاء له وأي ولاليهن محمد شاه عبد الله شاه أحمد دعاء له ونظير الدلي منير الدلي قولي حسبان تو نايمك أنا أبوبان وتوصلنا من نيرة محمد ناظر بانوح مركان إن شاء الله بإذن الكريم هل كان ميلها محمد صفر يسني تذكر بنا أنك إمك dhibaatooyinku de waxay ka dhacaan wax weeyaan maartay meelaha media haday dadku kala caroodaan awal way u astunaan jireen laakiin imika dad maartay meelaha de wax ku doonaya ayaa jira marka anagu wax marqaad ka nahay Muniira in dadku la joogto waxa ay u baahan tahayna waxa hore loogu soo sameeyay waxa kale ay u baahan tahayna loo qaban doono insha Allah bidna kariim dad wax loo qabto oo media wax looga qabtana way badan yihiin Soomaaliyeed dad waaweyn baa jira dad uriyaan ma jira dad waashi baa jira dadkoogiiba u hanti laba jira wadiga arkaayo wadankeena waa wadan dhibaatooyin fara badan ka dhaceen marka qofkii qof wax u qabanaya waxa u sharaf badan qof waalidkiisa la joogo inuu wax u qabto qof haduu qofku qof weyn yahayna dadkiisa la joogo haduu qofku qof yar yahayna hooyadii aabihii adeeradii abtii kolba kii la jooga ay la joogaan laakiin qofka inta cudlo wax laga duubto oo la yiraahdo hebel baa sidan hebel ayaa sidana يعني waxa weeyaan waxa ka dhigan tahay waa in qofkaasi oo kale sharciga la tiigsada ayaa wanaagsan qof ka kufsi ku sameeyo bil lamid yahay qof maartay yani qof yaro aanan hooyadii aabiyo wala abtigii adeerkii midna la joogin cid la wadwado oo ha loo soo ururiyo wax la loo soo kana yale ka bil lamid yahay in sharciga la hor keenahay laakiin imika iyo maanta iyo xilligan cidna waxba uma haysano laakiin cidda dambe ee waxa ku kacda insha Allah minna kariim sharciga uma natiisan doona laakiin waxaan maanta u hayno oo inta u hayna ma jiro inta kolka horeba inta la doondoonasina
هذه أدب محسنة الله بركيه عدة فضيحة السنة وعد كل قدرانون إن شاء الله هذه أدب حن لا نهاي عدي وحاكوك عدي دب دم السنة أنا بحوكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حجوبنا ساعدنا مكان هذا نقولي عبد الناصر شيخ عبد الله شيخ أحمد دعالي ورلي أنا جمعني كني أكفر ديا عبد الناصر دكتور عبد الناصر هو محوها إن هذا الكي سانا قانو أمان هاي أرنتها إنك كهلا إن تها منير هذا كأنو نهاي أرنتها سمودة يسوع سعودي مدة بدنا محوها إنك واحد وريجي سميريها مرلي wax kala oran mayno qof kasta sidii uu qaatay kii muxuu nooca xumaanta ula socdayna sawaabkeeda Allah siiyo u banoorani kii khayrka ula socdayna ee qofkana cabashada marleedeynteeda ka timid oo meesha joogsatay ninkii Ilaahay dartii ula socday ula shaqeynayna Ilaahay sawaabkeeda ka siiyo maxaa saacadaynayna imika adduunyadu waa had way warwareegtaa Reer Axmed Ducaale muxuu ama Reer Cabdillah waa qoys ballaaran waxaan ka marakacayna halka maanta taagana adduunyadu waa maalmo kolba dhinac bay u socotaay maanta muxuu ahaa wadad hanti badan haysta Ilaahay u barakeeyo qofkoodana muxuu ahaa la wacalaafi kara waxaan marakacayna imika halka media ka marakacayna waxaan heshiis ku nahay halka muxuu ahaa media u soo fadhiisanay Cabdi Naasir oo muxuu ahaa dhaktarka oo inta adeerkeeda intaan aabaheed la gaadhin wuxuu ballanqaad hortayada ku sameeyay waxa dhaktarka la xayad laga keenay ee muxuu negatifka uu qoray adduunyada de kanuun ma jiro laakiin meel kasta oo inataas ay ku tahay mabsuud ama mubtax ay ku tahay in la geeyo oo waxay ka cabanaysa laga tirtiro ama muxuu ilaaj diini ah loola ko ama ku dhakhtar loola ka dhamaan uu dusha ku sido sama waxaan u ducaynaynaa dadkaas waxaan markale ku celinaa kuwii muxuu ahaa nagu soo caawiyay inta gabadha imka la carabaabayo ee la leeyahay yadna raali gelinta la siinayo muxuu ahaa wadna caawinaysa leeyeen Israa'iil muxuu ahaa waxaan ku raacsanahay dadku yiraahdeen wax kasta oo muxuu ahaa soo socdana meel buu ku dhamaadaa sida awadeerkeed ka marakacayo maanta way awoodaan qofkooda meesha doonayeen geeyaan munira yarna waxaan kula talinayaa adeerada ka bilo cabashada hadii Allah yiraahdo ku wixii ku agmar adeer macaan waxaan muxuu wax ku dhamaanay waxa uu ballanqaad hortiisa kale uu qiraya afkayga muxuu in weydiinaya imika meel kasta oo muxuu ahaa la gaadhay gabadhaasi inuu ku sito laabta oo isagu mas'uuliyadeeda uu qaadayo wixii muxuu ahaa socdo ee gabadhaasi muxuu wax loogu tarayina maanta laga bilaabo qoyska taraya insha Allah ta'ala cidii wax ka soo taraysayna muxuu aad ugu mahadsan yihiin maantana anaga kala wareegnay wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu alaykum wa rahmatullahi waxaan ahay Munira inantii hawsheeda maalmaha social media dhex socotay maantana idin la hadlaysaa anigoo nabad qaba alxamdulillah waxaan joogaa meel amaana oo guriga adeerkaya mana jiraan wax afduubaya iyo wax xariga mana xidhni wana nabad qaba midna waa idin sheegayaa hooyaday markasta waa hooyaday cidii bedelasaana ma jirto laakiin ha laga daayo caydan iyo waxyaabahan loo qorayo ama waxyaabahan laga sheegayo aniguna aad baan u fiicanahay wax kastoon rabana waa laga qabanayaa oo waalidiinteedii bay garab joogaan cid kastoo ay caawiso ama garab siisayna aad bay mahadsan yihiin qof kasta oo ama hadal ama wax kale ama wanaag kale iyo wadayna dhammaantood aad bay mahadsan yihiin suxuf cishqi magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal